dhammaan asxaabteeda ku xiran YouTube-kayga marka ugu horeysa waa idin salaamay. Maanta waxaan idin wadaagi doonaa qiso jacayl dhab ah oo dhacday. Qisadan waxa ay ku dhacday wiil lagu magacaabo Sayid Cali Garmash. Waxa aan jeclaystay in aan idinla wadaago qiso xanuun badan aniga igu dhacday. Qisadan uma soo bandhigin in aan xusuus galo, laakiin waxaan la wadaagayaa asxaabteyda si ay u noqoto dhiirigelin. 12 Maarso 2020 ayaa waxaan isbaranay gabar lagu magacaabo Maryam. Maryam waxaan isku baranay goob ganacsi uu leeyahay wiil aan saaxiibo nahay. Maryam waxay ahayd barashadeedii mid aad ii soo jiidatay, weliba na dhex martay jacayl aad u baaxad weyn. Isla markaana barashadeennii kadib waxay tustay jacayl ka duwan kuwii aan horey u soo maray. waxay ahayd qof nolosheeda inta ka dhiman aan ilaabi doonin. waxay ahayd qof naxariis badan, xilli walba idreensiisa farxad iyo kalgacayl ay ii qabto. anigu waxaan ahaa makhluuq aan garanayn dantiisa. waxaan u jeclaaday si xad dhaaf ah. waxay ii gelisay riyo gabagabadeeda aan noqday mid la tahaa xanuun. qof walba wanaaggiisa lama xaqiro, xitaa haddii uu ku xumeeyo, walow aan aniga weligay qof aan xumaynin. noloshayda waxay ku socotay sida ugu quruxda badan. Maryamo waxaan isla meeldhignay sheeko badan. kadib in aan isguursanno, aan nolosha ku midoowno, walow ay rabtay in maalmo kooban ay ku soo afjarto arrinkeenna, laakiin aniga go'aankaas lama qaadan. markaas duruufo jirtay awgood oo ay ahayd waddanka inuu soo galay cudurka COVID-19 ee adduunka saamaynta badan u geystay. aniga waxaa isoo wajahay shaqo la'aan cudurkaas daraaddiisa. sidaa ayaa go'aan aan ugu qaadan waayey in aan isla markaas xaaladda dhammayno, waayo aniga waxaan aad u jeclaa in aan ku bilowno nolosha mid aad u sarraysa. kadib waxay ila qaadatay muddo yar kadib waxaan go'aansaday in aan dhexda u xirto si aan nolosha u midayn lahayn. waxaan sii qaadanno maalmo, mar walba aniga ayaa ilaalin jiray balanteenna. Maryamo waxay lahayd saaxiib aad u qaali ah oo ay mar walba la tashato, taasi oo ah Farxiya Nuur. aad ayay ugu dhiirigelin jirtay in aan nolosha midayno. waxayna dhihi jirtay, waa wiil aad u fiican kuna jecel, waa kii aad nolosha wada qaadan lahaydeen ee wiilkana ha xumayn. soo dhaweey iyo walaasheeda aan meesha ka marnayn Mrs. Qadro, ayaduna dhiirigelinta kaalin wanaagsan bay ka qaadatay. labadaasi gabdhood aad bay u mahadsan yihiin sida ay u jeclaayeen si aan nolosha u midayn lahayn. aniga iyo Maryamo waxaan ahayn kuwo aad isugu qanacsan, mana jirin markaa kuwa naga nasiib badan, waayo haddii aan codkeeda maalinkaas oo dhan maqlin waxaan ahaa mid murugooda. waxaan ka raadin jiray meel walba aan codkeeda ka maqli karo. haddaan waayo waxaan wici jiray walaasheed si ay ugu sheegto meesha ay joogto. sidoo kale haweenno badan waxaan wada qaadanay wakhtiyo aad u macaan, iyo hadalba hadalka uu ka macaan yahay ayaa ina dhex mari jiray. midda kale mar walba waxa qalbiga ka guuxay waxa uu ahaa sida ay ugu martigelin jirtay cunnada macaan ee gacanteeda ku kariso. haddii aan wax ka tilmaamo erayadeeda waxaa ka mid ahaa, xabiibi nolosheeda qofna kuma aamini doono, hayga fogaanin. balanii wacad waxaan kaaga galay nolosheeda haddii aad xumayso xitaa inaanan kaa fogaanin. xitaa haddii uu calafna kala geeyo waxaan ahaan doonaa mid mar walba garabkaaga taagan. waxa uu waayuhu socdaaba saacadba saacadda ka dambaysay aan isku sii noqonayno laba labaane, kalsooni isa siiya, aadna isu jecel, aan marnaba kala fogaanin. aniga waxaan go'aan ku gaaray jacaylka aan la taahayo nolosha in aan ka gulgaaro. gabadha aan gabdhaha kale ka doortay nolol aan la wadaago aan lama qadarin, waayo wax walba waa isbedeleen. waxaan ku bartay naxariis, waxaan ku bartay farxad, waxaan ku bartay raaligelin, laakiin wax walba waa isbedeleen. xilliga aan la hadlo oo aan ku dhaho, macaan maxaa kugu dhacay, waxaa igu jawaabi jirtay, adiga ayaa ismoodsiiyey noloshayda. waxa ay noqotay mid mugdi ku jirta. waxaan ka go'ay cunadii. markaan codkeeda maqlo waxaan ahaa mid ilmeeya, ayadoo aan la hadlayo haddana aysan ii jixinjixaynin. wax walba waxay ii noqdeen qaraar. habeenba habeenka ka dambeeya, habeenada ka mid ah waxaa igu tiri, waxaan doonayaa in aan noloshaada ka baxo. waa habeenkii aan nolosha ka quustay. waa habeen mugdi ii ahaa aniga. waxaan aad u jeclaa in aan nolosha si qurux badan u qaadanno. waxaan su'aalay sababta
ay nolosheeda ugu baxayso maxay tahay qaali wax ii sheeg maxanto qalad aan ogeyn miyaa jira xabiibti maxaa dhacay waxay igu tiri waan go'aansaday waxaan noqday maqano jooge aan xaaladiisa qiyaasi karin marka aad qof jeclaato haddana uu kaaga baxo aad bay u xanuun badan tahay waxaan xusuusiyey wacadkii iyo balantii aad ka cuslaa ee ayada iga qaaday anigoo aanan dhihin iga qaad jawaabta ay ii siinaysay waxay ahayd inta badan kuwa laga dareemayo jees waan sabray weliba aad ayaan u adkaystay hadalladaas jeesjeeska ahaa ilaan waxaan ahaa naf wax jecel weliba waxaan islahaa goormay qaladkeeda ka soo laaban doontaa laakiin sugiddii aan sugayay kama aanan dheefin kalsoonni xumo mooye xero kale ayay yeelatay weliba sida markaa u muuqatay waayo shalay qof aan xumaan ku kala tegin isbeddel adagna la timid waxaan u fasirtay in ay noqotay xilo rageed weliba halkaa kuma ekeen waxay la wadaagi jirtay hadallo qalbigayga gubayso wax badan waan ololay oo waan ooyey laakiin alla ayaa maad iska leh mar walba waxaa garabkayga taagnaa walaashay aan marnaba abaalkeeda gudi karin xaliimo sheekh iyo saaxiibkay cabdixakiim maxamed waa dadka keliya qalbiga ii qaboojin jiray xil walba garabkayga taagnaa walow ay adag tahay in aan bogsado ayna igu luntay kalsooni fara badan oo aan shalay lahaa mana aqaano sida uu qalbigayga ku qaboobi doono ugu dambayn waxaan hawada kuu soo marinayaa maryamo aad baad ugu mahadsan tahay sida wanaagsan aad iga fikri jirtay waxaad i bartay cashar ii noqon doona kuwo aan ka digtoonaado waxaa i tustay in lagu kalsoonaan karin qof bini'aadam ah aniga ha iga filanin in aan xumaato kula kaco sida dhalinta qaarkood oo kale xil walba waxaad ahayd ma qarin doono laakiin maalin waad dareemi doontaa xanuunka aan dareemay oo kale nacabkaagama ihi laakiin waxaan rajayn doonaa in ay cashar kugu noqoto si aadan beri naf kale aadan uga ciyaarin noloshiisa guul ayaan kuu rajaynayaa maanta aniga noloshaada waan ka baxay xor ayay nolosha kuu tahay weligaa runta ha ka weecan beenna ha ku farxadgelin waayo adigu raalli kama tihid in sidaa laguu galo maryamo ugu dambayn dardaaran wiilyahow weligaa gabar ha xumayn gabar yahay adiguna weligaa wiil ha xumayn ilin nafsiga ma waaro weligiisa guul ayaan kuu rajaynayaa maryamo xaaji